بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين marka hore waxaan salaamayaa dhamaan saxaafadda marka labaadna shirkeyga jiraayada maanta waxaan kaga hadli doonaa laba qodob oo ku saabsan dhacdadii ka dhacday degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya dhacdadaasi oo isugu jirtay laba nooc dhacdadaas oo ah dil loo geystay dad shacab ah oo rayid ah waxba galabsanin kuwaasi oo ku mashquulsanaa howlahoodii shaqo ayagoon ka warqabin waxa ka dhacay ama dagaal ka dhacay ka warqabin in si loo dilay arxandara ah dadkaas oo ka koobnaa 8 qofood doon cambaareenaya run ahaantii arxandaradii loo dilay in xariis daradii meesha ka dhacday waxaan kaloo cambaareenayaa dilkii maanta ka dhacay isagana sidoo kale qofkii odayga ahaa isagana degmada lagu dilay sida arxandarada loo dilay bini'aadanimada ka baxsan taasi waa cambaarayn iyo qof walbo aan shacab aan waxba galabsanin ku dhintay dagaalkaasi aad iyo aad baan ugu xunnahay waana kaga tacsiinaynaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun tacsiideen cambaarayn kadib waxaan rabaa in halkan baaq ugu diro dadka ka faa'iideysanaya dagaalada noocaas oo kala ama ka raadinaya waxyaabo siyaasad ku saabsan ayagana waxa la ilaahay ka baqa dhiig qof bini'aadan oo muslim ah inaad siyaasad ku gaarto run ahaantii wax aad u xun weeyaan wax aad u qaab daran oo aanan ku jirin shariicada islaamka iyo aanan qabin qawaaniinta caalamka marka ayagana waxaan leeyahay dadka noocaas ah ee hurinaya colaadaha dhan kastoo ay ka tirsan yihiin waxaan leeyahay kawaantooba ilaahina kaga baqa qof bini'aadan oo la dilay dhiigiisa waxba lagu mahelayo waxaan kaloo baaq u diray oo gaar ah xildhibaanka ka tirsan Hirshabeelle oo maalmihii ugu dambeeyay shaqadiisa ka dhigtay degmada Walaweyn ee har iyo habeen u taagnaa colaadaha iyo inuu kiciyo bulshada meesha ku nool oo masaakiinta ah ee shacabka ah dariska ah ee la soo dhaweeyay inuu maalin kasta mikrafoon dhex qaato oo meeshii ka horinaya dagaalo colaada ah xildhibaankaasi oo magaciisa aad iyo aad loo yaqaano bulshadana aad u taqaano oo Hirshabeelle ka tirsan xildhibaan kala dire waxaan leenahay xaq aad raadinaysid meel kale ilaaha ka siiyo xaq aad raadinaysid waxaad ka heshay Hirshabeelle aad ka soo jeedaa oo aad ka tirsan tahay oo baarlamaanka ka mid tahay inta ha ku deeqdo deegaanka Walaweyn Shabeellaha Hoose wuxuu leeyahay xildhibaan uu leeyahay oo laga soo xulay oo aan kamid ah aniga marka waxaan ku leeyahay walaalow dhiiga muslimka laguma gaaro mansab laguma gaaro qof walbana kaliya ayuu dhimanayaa godka kaliisa la gelinayaa in dad shacab ah waxba galabsanin la laayo maanta mas'uuliyadeeda adiga qaadanaya mas'uuliyadeeda sababtoo ah waxaad mikrafoon la dhaxmartay magaalada waxaad ku baaqday magaalada in qad cagaaran la marsiinayo qadka meeshaad ka keentay ma naqaan annaga haddii aad wax xalinaysid aad ka hortagaysid dhibaato deegaanada Hirshabeelle oo wali aan gacanta dawladda ku jirin sida gacanta ugu soo celineed falkeeda inaad gashay ka muhiimsaneed aad energy ku bixisid juhdi ku bixisid iyo wixii lagu dhaariyay kitaabka aad gacanta u marsatayna arintaas ay tahay marka waxaan kaaga digaynaa mar labaad inaan deegaankaasi imaanin aadan ku baaqin dagaal dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda Koonfur Galbeedna waxaan u direynaa dacwad ka dhan ah xildhibaankaas iyo dawladda Hirshabeelle xildhibaanka dare in uu naga joojiyo dulmiga uu deegaanka ku wado marka intaas waa baaq aan xildhibaanka u diraayo siyaasiyiinta kalena waxaan leeyahay iyagana kawaantooba qofka muslimka inaad dhiigiisa ku raadisaan mansab siyaasadeed dagaalka maanta Walaweyn ka jirana dagaal qabiil lama dhihi karo waa dagaal siyaasadeysan oo aan ognahay inuu dagaal siyaasadeysan yahay sababtoo ah waxaan haynaa cadeymo iyo markhaati oo xildhibaanka Hirshabeelle degmada ka sameeyay ayaan haynaa waxaan halkan marka ugu mahadcelinayaa dawladda Koonfur Galbeed iyo dawladda federaalka Soomaaliya oo ayagana mas'uuliyad iska saaray sidii dadkaasi loo kala dhaxgali lahaa ay ciidankii militariga xoogga dalka Soomaaliyeed ay ugu dirtay waxaana ka digaynaa ciidanka militariga iyo ciidamada kaleba inaysan ku xadgudbin dadka shacabka ah inayna u sinaadaan
dadka sharaydka ee meesha deganna ay u sinaadaan si isku mid ah u badbaadiyaan amnigoodana u sugaan taasina waxaan kaga mahadcelinaynaa madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed shirkii jiraa'idna halka ayaan ku soo gabagabeynayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.